Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Axmed Yaasiin iyo Dhab TV oo Canada kasoo waramaysa maanta. Maanta fariintan waxay ku socotaa fariin oo gaaban oo insha Allah maanta waa Isniin. Programyo badan baan idiin soo diyaarinay. Wareysiyo kala duwan oo dad muhiim aan la yeelan doona ayaa jiri doona. Qaybtii af Ingiriiska ahayd oo aan ka hadlayno siyaasadda guud ee Ethiopia iyo qaybtii mataqaana af Soomaaliga ahayd oo ka hadlaysa siyaasadda khaaska ah ee Soomaalida meel walba ay joogaan ah, ama ha noqoto Soomaaliya, ama ha noqoto Kenya, ama ha noqoto deegaanka Soomaalida. Hadda waqtigii waxa weeye abaabulka aan la hadlayay khaasatan wariyayaasha sida khaaska ah nooga soo jawaabay baaqi aan bixinay inaan wariyi doona aan nahay, iyagoo joogay ama Soomaaliya ama Kenya ama Ethiopia, ama deegaanka Soomaalida dhammaantiisaba. Waxaan helaynay wareysiyo ama programyo cajaa'ib ah oo dhalinyaro fikirkooda iyo hal abuurkooda markaad dhegaysatid aad u khushuucaysid. Marka haddii aan qaarkiin aan dhaqso usoo jawaabi weynin hana laga raalli ahaado. Qolyaha kusoo diraya Facebook mataqaana messengerkana jawaabihiina way naga daahayaan. Inta badan waxaan dhahnay mar walba dhabtv1@gmail.com nagula soo xiriira oo noogu soo diro wixii fariimaha ah. Dhinaca Facebook fariimihiisa inta badan kama jawaabi doono. Marka waxaan jecelnahay inaad email ahaan noogu soo dirtaan kaasoo secure ah oo aanan mataqaanaa pageka aanan interruption garanaynin ama aanan mataqaanaa dadka isku dayay inay wax khaldan soo diraan kadibna markaad taabatid linkigaas pagekaaga uu khaldamayo ayaan doonaynaa inaan kala saarno. Marka dhinacaas noogu soo dira. Dad badan baa WhatsApp numberna soo weydiinaya, kuwaasna waxaan leenahay fariimaha noo soo dira, nambaradii noo soo dira, annagaa idinla soo xiriirayna. Inta aanan la xiriirinna waxaan idinka codsanaynaa inaad naga warsugtaan ama aad isku daydaan fariimihiina inaad caddaysaan oo si caddaana usoo dirtaan. Waxaa kusoo haray qorshaha Dhab TV. Qorshaha Dhab TV uu fudud yahay. Ilaa iyo 4 bilood soo socda waxaa la isku dayayaa sidii loo aruurin lahaa wariyayaal meel walba jooga oo kasoo waramaya danta guud ee Soomaalida, ama Horn of Africa siyaasadiisa, ama ha ahaato siyaasad ama ha ahaato war isweydaarsi ku saabsan oo programyo doodeed oo siyaasiyiin ah uu jiraya. Laakiin inta badan waxa weeye wixii danta guud ah unbaa la doonaya meel walba ay joogto. Dhinaca kale 3 bilood kadib 6 bilood soo socoto waa after 3 bilood ama 4 bilood kadib qorshuhu waxa weeye dhisidda iyo abaabulka studioyaal rasmi ah. Ilaa iyo 2023gana waa marka aan doonayno 2023gana waa marka aan doonayno in aan la launch gareeyo satellite-ka qaybtiisa ee TV-ga. Qorshayaal badan oo fundraising iyo waxyaabo badan baa jira, kuwaaseeto maamulka u taala. Laakiin wariyayaasha waxaan ka codsanaynaa inay naga warsugaan. Waana ku mahadsan yihiin dadka sida sharafta leh noola soo hadlay ugana soo jawaaba baahidooda. Dee xiriirkeenna hadda unbuu bilaabmo uu sii xoogaysan doonaa intaan ka shaqaynayno danta guud. Marka fariinta maanta waxa weeye haddaad noo soo dirtay fariintii mar horeeto Dhab TV, waxaan ka codsanaynaa hadda inaad iyada oo Gmail ahaan noogu soo dirtaan. waxaad tusaale ama warbixinta adeysaan dhabtv1@gmail.com. Dhinacaas ayaan inta badan aan eegaynaa. Inta nala soo xiriirtay aad baa umahadsantihiin. ilaa dhowr boqol oo email iyo iskabadilowba mataqaanaa Instagramka iyo instant messageska iyo waxaan helayna kaleetana wayba kasii daran yihiin. Marka baahi inay jirto way noo caddaatay. Marka waad ku mahadsan tihiin mar kale
iyo marar badan oo kaletaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu youtube-kana waa subscribe garan karaysaan haddii waxa ka dambeeya oo dhab tv waad geli karaysaan marka waa mahadsantihiin mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar kumanaadba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu